Noloshu waa mid noocyo xaalado kala duwan leh. Adiga oo jawi nabdoon iyo dalxiis ku jira ayaad la kulmi kartaa dhacdo naftaada khatar gelin karta, taasoo kaa wajihi karta xayawaanada aan naxariisan, sida ninkan ku dhacday oo kale. Haddaba inta aydan gudagelin muuqaalka, fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar. Hana hilmaamin inaad furato gambaleelka si ay kuu soo gaadhaan muuqaaladeena cusub. Ninkani oo ahaa nin sawir qaade ah ayaa ka soo degay gaadhigiisa isagoona ka helay bilixda qurxoon ee dhulka. Waxa uuna jeclaystay inuu halkan sawir ku galo, laakiin waxa uu la kulmay argagax. Waxa uuna arkay libaax aanba ka fogeyn oo xaggiisa u soo socda. Waxa uu galay xaalad adag isagoona isticmaalay xeelad. Ninkani waxa uu qalbigiisa ka saaray cabsi iyo inuu cararo. Saaxiibadiisuna waxay ku sugayaan gaadhiga iyagoona duubayay muuqaalka naadirka ah. Sidaan soo xusnayba, ninkani qalbigiisa waxa uu ka saaray baqdintii, isagoona u fadhiistay sida ay u fadhiistaan xayawaanka qaarkood. Mar waxa uu iska dhigay wax weeraraya libaaxa laftiisa, marna waxa uu iska dhigay wax isdhiibay oo kale. Libaaxuna waxa uu la yaaban yahay qaabka uu u fadhiisanaya ninku. Waxa uu u maleeyay libaaxii xayawaan qariib ah oo doonaya inuu weeraro mar waliba oo libaaxu dhanka ninka u soo cararo. Ninka ayaa gacmihiisa kor u qaaday si uu iskaga waabiyo libaaxa, manuu haysan ninkani wax hub ah, waxaana gacantiisa ku jira tishii oo keliya. Iskumuuna dayin ninku inuu cararo, sababtoo ah waxa ku filnayd hal mar oo uu qabsado, laakiin waxa uu isticmaalay caqligiisa iyo aqoon u lahaa libaaxyada iyo qaabka ay u ugaadhsadaan. Waxaana uu awooday inuu ka xoog badiyo libaaxa. Libaaxa ayaa iskaga tegay ama iskaga dhaqaaqay ninkii, isagoona ka tegay cunto uu si fudud ku heli karayay. Ugu dambeyn, waxaynu la gudboon inaynu qaadano kaartooyinka uu ninkani isticmaalay haddii aad la kulantid maalin uun libaax.